حفلة dhaqanka ee saaka aynu ku caleema saarayno caaqil maxamed caaqil cabdi muuse oo ku soo biiraya bahda dhaqanka xuqaasha jamhuuriyadda Soomaaliland cid kasta oo ka soo qayb gashay culimada diinka dhalinyarada bahda saxaafadda mujaahidiinta iyo caaqilada salaadiinta dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh xafladani waa xaflad dhaqan oo dhaxaltooya عاقل كسيد الله الشيء به بمسرقانه عاقل عبدي إلى أن حديث سمع كورا ويا عاقل في عمرها إلى كي سنة وحين كفر إلا حلقي به يوم الله منه مركا عاقل وحن خلال هاي حلق الله قواصر لقولي بي وهو صدح وكاقد عين يا رب عاقل قدوم شرعسا هي قرعه هي قعمرا صدح رابطة هاي قوة وحضرت إن شاء الله عاقل في دلك سيدتي سيدتي سواء فعاه وحضرت إن شاء الله عاقل في طرق حليلية وحضرت عاقل في وراء كوه قامية حاول بضبع إلى الله وحاول يا وقت قلبك أي بكتشره ووقت اللوبة هي لسكوت الشرط عاقل كيا غير في سنين عروضة في التردي صورية الله كايا حسبيتنا ويهون بديه وكاجد بعين العاقل هذين بحسب كلاين على ضمنا وكاجد بعين إن شاء الله بإذن الله وأبي هذا الخير كلام رياضيو وحليل والسودان يقول سعد مصطفى كرفوق بسول ويو إنت كلام بيرو كجويو وجروا يا أبي ورد سعد السودان ولا سعد مساعد ولا فكر ثابته وهذا سواب ترسيل هذا رحمن العلي وليه السودان يقول سوير أول ده سعد سعد بالي لكن سعد موسى السودان سعد موسى يقول قبصنا يا أبو كسوق ليه هذا هو أبترسين لو أكون بنايستي توقع لو أكون بنايستي دول لو أكون بنايستي صوت هذه سوير أولا ماذا حي ساري oo waxa weeyaan aniga salaadiinta Suudaanka guud ee Suweero wala ee madasha isaguna uu fadhiyaayo taana hadalka ka taagay Suweero wala meel kasta joogaan dibadda iyo gudo waa mahadnaqaya waxa la yiraahdo waa mahadsantihiin isku duubnaado oo kuwii wada tashaday isu tanaasula ee turkoodu waxa la qaybsaday qaranka waxa la qaybsaday Allah idinka yeelmaan Suweero wala waa ducaynayaayo waxaan ducaynayaa turkii jira waxa weeyaan Soomaaliland bila Suweero wali ma shaqaynayso ninka doonaya Soomaaliland hogaamiyana Suweero wali taabashadiisa iska ilaaliyo haddii iska ilaaliyo waayo xanuun socomaaya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland tacabada baa inaga galay inagu dadka dawlad ku nool ka amalihina cashuuraha dawladda raadiye mali laakiin waa cashuurtana waa bixinaa qarannimadana waa difaacnaa marka wixii xadgudub ah ay ugu yimaadana waa ka tashanaynaa insha Allah billahi kariim waxayna talo ku gelmayna taana toobka madasha fadhiyada caaqilkuna waa caaqil reer xaraf oo daaru xaraf waa ku dhashayo luqaasha kale uu iga xigaayo si gaara ayaan isku siinahay oo caaqil isku deegaanahay oo dadka kale isaga dhownahay marka waxaan dadkana halkan abtiyaal baa laga sheegay Axmed Raab hadeer la durayo waradan waxa leeyahay aw xareeye warbeesha dadka Nuux Ismaaciil laga xageed ka dhaafaysa aw xareeyo saddex goor Ismaaciil dhalay midka saddex goor Nuux Ismaaciil dhalay mar ogaadeen dhalay mar makaahi xageed ka dhaafaysa ya hadalka waa madiyo waxa ku soo gabagabeeyay sida khayrka Allah inoo waafajiyo arrimaha ku aslaxa Allah ka yeelo qarannimadana Allah inoo adkeeyo abaaraha Allah inaga soo jeediyo cadawga Soomaaliland Allah jeediyo raga waashay dulmad Soomaaliya kala baxay doonaya dalka inay soo faruuraana il gaaraha lagu hayo qarannimadu waxay ugu joogtaa madax rag waxay tuuna cumaamad qaato kala garoowo ka dago kala xamar ka daguura walaalahayga Soomaaliyeed taana ma dhageysanayno difaaca raga iyagu ku dhamaanayo waxaan leeyahay madaxweynaha maanta talada haya afrishaarnimo qaranka Soomaaliland lagu halaago oo kolba diyaaradii geedha aad u karaysa salaadiin ma shaqaynayso qarankan madaxda uu jooga waxaan taladeeda ogolayn